بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan joogaa magaalada Bursalax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxaa ka dhacay geeri fool xun oo lagu dilay wiil aabihiis. wiilka odaga waxaa la oran jiray Caaqil Cabdi Hodan Axmed Xaashi. wiilka uu dhalayna waxaa la oran jiray Axmed Cabdi Hodan. odagu 65 jir buu ahaa sida la sheegay wiilkuna 18 jir buu ahaa. waxaan ka xumahay geeridaas ku timid walaalahay waxa dishay gacan ka xaq daran. waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii ay ka baxeen iyo guud ahaan ummadda gobolka Mudug gaar ahaan qoyskii ay sida gaarka uga baxeen. nimankaasi waxay joogeen meel baadiya xoolo dhaqatay ahaayeen geel bay ku haysteen. xeradii geela loogu tagay waa laga soo afduubay. jidka lagu soo dilay ayagoo meedaha waxa la soo galiyay degmada Bursalax baana la keenay. waxaan cadeynaynaa nimankaas in aan gudaha Soomaaliya lagu dilin Itoobiya lagu soo dilay waayo dilay ku roon yahay meeshii la keenay calaamadaha ka muuqda way fara badan yihiin. markii baaritaan lagu sameeyay kartoomadii dhiiga baabuurka loogu soo dhigayna waa barkan yihiin oo waa dhiigii baa ku yaala oo meesha lagu daadiyay. nimankii baabuurta ka dejiyeen meeshay ku falxasheen. laba nin oo meyd ah baa sida meel loo dhigay meel aysan ku rafanin dhiig ku daadanin yani calaamadahaasi waa muuqdaan. anigu waa dul tagay marka waxaan cadeynaynaa nimankaas halka inay ku dhinteen gacan ka xaq daran baana dishay. niman ardaaliinaha dilay wax qabiila ku tashaday ma ahayn. annaguna dawlad ahaan waxaanu ka tacsiyeynaynaa shalayna markii aanu meesha nimid waa ka tacsiyeynay oo ehelkii oo meesha jooga oo meydkii yaala maamulka gobolka oo isku duuban baa ka tacsiyeyay. haddana waa ka tacsiyeynaynaa. waxaanu Bursalax joognaa inaan ardaalinta soo qabanno gacan bira ku qabanno. hadda ka hor dhacdooyinkii ka dhacay meeshan dadka intay dadka laayaan baan la qaban jirinin 8 sano soo socota dadka lama qaban jirinin laakiin annagu hadda waxaan dadka inaan qabanno dhibka geystay meesha ay galaan uga harimayno. ehelkii dhibtaan ay soo gaartayna waxaanu leenahay inta hawshaan annagu aan ku jiro waxaan idin ka codsanaynaa in annaga aad naga warsugtaan oo aad naga war dhowrtaan. annaguna tallaabo adag baanu ka qaadaynaa insha Allah tacaala. dadkii falka geystayna ka harimayno. dadka nabadgelyo xumada ka shaqeynaya oo fidnada ka shaqeynaya oo dadka isku dhufasidkiisa ka shaqeynaya oo argagixisada la shaqeynaya oo kooxaha jirka dadka isku dhufana la shaqeynaya. waxaanu aragnaa dad inay soo abaabuleen oo dad ka dambeeyaan. waxaanu aragnaa annagu maamul ahaan tallaabada ku habboon baanu ka qaadaynaa.